magaalada Hargeysa soddonkii sanadoodii la soo dhaafay waxay ku socotay xawaare aad u sareeya oo dhinaca dhismayaasha guryaha iyo hoteelada ah waxaana magaalada Hargeysa aad ku arkaysaa dhismayaal casri ah oo laga bineeyay gudaha magaalada kuwaasi oo loo dhisay qaab farshaxanimo ku dheehan tahay kani waa mid kamid ah hoteelada casriga ee ku yaala gudaha magaalada Hargeysa waana hotel ka samaysan diyaarad waxaana laga hirgeliyay gudaha magaalada Hargeysa mulkiilaha hotelkani oo lahaa fikradan ku cusub Somaliland ayaa ka sheekayay goortii ay ku dhalatay fikradani iyo waxa ka dambeeyay sidoo kale mulkiilaha hotelkani waxa uu ka dhawaajiyay in dhowr wadan laga dayday fikradani cusub bismillaahir rahmaanir rahiim halkan waxaad ku arkaysaan diyaaradii aynu ugu talagalnay ciidan hadii Ilaahay nafteenu daayo inaynu ku wada fiidsano halkaas oo aynu ka furi doono maalintii ciida hadii Ilaahay ilaa والله مدبر بانو كفكريني هذا ويديسي ان قورتي نقول رافي 2 years بان كفكري سيدي عن لكدان oo kale u keen la marka adoo markan arkay diyaaradda dhowr goor horena aan raacay markii dambena ay hawlgab noqotayna aan arkeenay aan qoladii hadad weydiisato talo iyaga oran doona anaga sameeysanayna aan 2 sanadood markan ka fikirayay markii dambe nimeeyo bahasha waxaan doonaynaa iga iibsan waxay igu dareed markii la yiri maxaad ku falaysaa labadayda gaari Ethioopianka injiinkoodan qaadaya oo saaraya labadooda markaasaan ku soo guraya dadkeena caanalayda iyo dhuxulaydan soo qaadaya nimankii intay qoslay ilaahay naga daayo dhabta ka hadal lagu siyaana banaanay markaasaan iri hadaad nasiib ku leedahay waad helaysaa waxaan iri abteel waxaan doonaynaa maqaaxi ka dhigo kelmad bay markaa igu ilaahay qaaliyo igu ilaahay lagu lahaadana banaan markaasaan anigu ma hunguri weyni waxaan sameyn doonaa waynu wada lahaan dabeet waxay igu ilaahay waxba nolol lahaan waxaad yeeshaa noogu shubanaga oo nasiib waxayaga adna qaado ilaahay ku barakeeyo markaas sidan aan u fikiray waxaan dhaka hore aan uga jirin Afrika imka dhowr meelood oo kale aan laga daydo macal Ethiopia waa la soo dhigay Ghana la soo dhigay Ghana la soo dhigay marka leerkun baa inta boon ka wada horeynay imka ku soo firin leerkun baa naxayirayay leerkiina hadii la loo soo daylay ma hadii way iidana hadii Ilaahay ila kulligin casum baa nootin jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan wixii ka dambeeyay entertainment haday noqoto raashin macaan haday noqoto dalabkeeda waan idin wada haynaa everybody choice fikradani waa mid ku cusub Somaliland waana markii ugu horeysay hotel ka samaysan diyaarad laga hirgeliyay gudaha magaalada Hargeysa dalxiisayaal badan oo kamid ah kuwa ka yimaada caalamkana waxay u noqon kartaa mid soo jiidasho leh hadan ID Carlson TV Hargeysa.